wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Umar Ali Cabdilaahi ayaa si toos ah markii ugu horeysay u shaaciyay labadii qof ee ugu horeeyay laga helay cudurka coronavirus. labadan qof oo ku kala sugan magaalooyinka Berbera iyo Burco ayaa mid u dhashay dalkaasi China ka kalena wuxuu sitaa dhalasho dalka Ingiriiska. wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa intaas ku daray in labadan qof ay maalmihii ugu dambeeyay la socdeen xaaladooda. wasiirku arintani ka hadlay ayaa yiri waxaan isugu yeernay wasaaradda caafimaadka oo weedeen dadaalkii loogu jiray baryahaaba diyaargarowga la socodka iyo wax ka qabashada aafadan ku soo kordhay caalamka oo xanuunkan COVID-19 maanta oo bishu ay tahay 31 bisha 3 2020 waxaanu xaqiijinaynaa in ay jiraan laba xaaladood oo qaba xanuunka COVID-19 oo midkood uu ku sugan yahay magaalada Berbera oo dhalasho ahaan uu yahay Chinese kalabaadna uu ku sugan yahay magaalada Burco oo ah qof Somaliland oo haysta dhalasho dalka Ingiriiska. labadan xaaladood ama labadan bukaan waxaanu arrinkooda ogaanay 26 bisha kadib waxaanu sameynay maalintii Jimcihii oo bisha ahayd 27 waxaanu amar ku siinay maamulka caafimaadka ee magaalooyinka Berbera iyo Burco in lagu sameeyo shaybaar labada qof si loo hubiyo in xanuunka qabanayeen kale. shaybaarkaasi waxa sameysay wasaaradda caafimaadka natiijadii soo baxday markaa waxa noqotay in xanuunkaasi ay qabaan uu la jiro laakiin si aan u xaqiijino ama aan u hubsano waxaanu u dirnay dhiigoodii mar labaad shaybaar ku yaal dalka Kenya oo la yiraahdo Camry 28 bisha oo WHO ay aqoonsan tahay kadib markii baaritaano dheeraad lagu sameeyay waxa xalayto la soo gaaray in la soo xaqiijiyay oo ay iswaafaqeen baaritaankii nagu aan sameynay iyo baaritaankii uu sameeyay shaybaarka ku yaal dalka Kenya labada qofna yihiin laba xaaladood oo xanuunka coronavirus qaba. isla markaa waxaan anagu amar ku siinay dhammaan maamulada caafimaadka ee labada gobol ee saaxiib iyo togdheer inay bilaabaan in la daba galo ama baaritaan lagu sameeyo dhammaan dadkaasi ay la kulmeen ay la joogeen ama intii labada ay ku sugnaan labada magaalo ay sarkeen si aan u xaqiijino ama aan u hubino inay jiraan dad kale oo xanuunka iyaguna qaba. waxa kale oo idin sheegnaa inaanu baaritaanada wixii ka soo baxana aanu idin soo wadaagi doono. labada xaaladood ama labada bukaan ee idin sheegnay labadaba xaaladoodu way degan tahay aad bay u fiican yihiin waxaana gacanta ku hayay shaqaalaha caafimaadka ee labada magaalo. waxaanu halkan uga faa'iideysanaynaa inaanu dadweynaha farno in horena waan u sheegi jirnay inay u hoggaansamaan oo ay raacaan tilmaamaha iyo awaamirta ka soo baxaysa guddida qaran ee la dagaalanka iyo ka hortagga iyo diyaargarowga xanuunka iyo sidoo kale tilmaamaha caafimaad ee laga baahiyo idaacadda TV-ga iyo goobaha kale. dadkana waxaanu faraynaa in arintaasi ay tahay arinta xaqiiqada ah ayna tahay maanta laga bilaabo in la fulin doono talaabooyinka xiga.